بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن دمانتين با وبرنامج dhinaca dhaqanka iyo suugaanta ku saabsan waxa halkan loogu martiya abwaankii weynaa ee hormoodka dhinaca dhaqanka iyo suugaanta iyo murtida Soomaaliyeed abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo uga mahadnaqayno waqtiga wanaagsan ee uu nasiyay si aanu halkan barnaamijkan oo suurta galo waxa isaguna halkan u diyaara oo inala jooga Cali Maxamed oo loo yaqaan dhanaaniye sadarkaysan isna waa ninka yar ee dhalinyarada ee daada yar waa abwaankii ugu yara iyo kii ugu weynaa ayaan maanta halkan ku kulmaynay marka bal waxaynu eegaynaa abwaan Hadraawi marka ugu horeysa haddii aynu ku bilowno waayadii hore dariiq iyo hab ayaa looga bartay dadka gabiya ama suugaanta maantana sibay wax u socdaan marka bal waqtigii hore markaynu eegno habkii murtidu ahaan jirtay ama dhaqanka suugaantii habka loo gabiya ahaan jireen iyo maanta sidan ay tahay bal maxaa kala duwanaanshaha ee marka ugu horeysa aad nooga sheegi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaynu garanno in waqti waliba leeyahay xaalado ka duwan waqtiga kale waqtiga aad ka sheekaynaysay waqtigii hore qalabkan isticmaalayno telefishin ilaahay ka dhigo maaragtay mikrofon iyo arrimahaas ma jirin gabayaagu madal buu ka gabi jiray oo ama meel aroos oo la isugu yimi ama haddii ilaahay ka dhigo geed iyo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay arrimahan dee uu la xiriira nolosha sawirkaas halkaasoo kaasaasoo ahaa laakiin maanta oo waqtigaa waxaa xukumaya ninka gabayaaga ama gaafuu ka gabayayaa meel la isugu yimi ama aroos ama meel kulana oo maaragtay aan qalabkan iyo waxba oo dhinacaas ujeedadu ka hadlayaana mid ka duwan bay ahay meeshuu ka hadlayo joogaana meel beeshan ka duwan ayaa ahay marka taas waqti waliba wuxuu leeyahay hadda qalabkiisa iyo waayihiisa iyo hadda ka dhigo maaragtay iyo ujeedadiisa marka way isu tagaysaa laakiin noloshu way sigsanaysaa way daba socon raggii ka dambeeyey way ragga maanta halka fadhiya su'aalaha la weydiinaya waqtiyadii hore marka nin meel ka gabiyo mujtamaca dhulka ku nool oo dhan way wada gaari jirtay iyadoo waliba saad sheegtay aan qalabkan iyo waxaan haysan maanta si waxaad moodaa in aan sidii hore u fideen oo dadkii aanay ugu duxanama aanay u gaadhin iyadoo isgaarsiintan badanna la haysto marka talo maxaa taa u sababa dadku meel kala duwan buu ku noolaayo deganaa markaaba nin dhambaalsida oo meeshu way iska warhaysaa inkastoo dee ay baahsantahay oo kala furanta haddana way isku xidhan tahay oo way iska warhaysaayo waayahayay dhacdooyinka nolosha halkaa ninkii marka nin meel ka yimi la arko waxaa loo yaabaa meesha aad ka timi bal ka waran xaaladda ka jirta ayuu sawirayaa oo maaragtay waxay ahayd war ku nool bay ahayd marka beeraha aad arkaysa ballaarkaale waxaa lala wax isku seeganay meesha hadday hadal tahay iyo hadday hawraar tahay iyo hadday war kale tahayba dhambaalsidahaasaa jirayoo goobtaa uu jooga marka wax ka dhacaan haddii la kale faafin jiray oo gelin jiray dhulka kale u tegi jiray haddii la kale marka taasaa ugu wacnayd marka la yidhahdo Hadraawi oo kale maxamed xashim cagaari oo kale ama raggii hore deesaan carab iyo cali dhuux iyo raggii hore dee Ismaaciil Mirayo marka la soo qaado gabayadoodii dadku way jeclaystaan waxay u qorsan yihiin dad abwaano waaweyn oo waa lagu dhagsan yahay ilaa imika marka waxaad moodaa bal ficil yar soo kacayay maanta sidee jaan soo heli karayaan talo iyaga laftooda kuwa u jiraayo ninkan ragga iyagana adimka ka hadlaysaa horta kow dee wadkii baabana dul taagan gabow baa isaguna jira iyo kaxiisa dhac ujeeddada tan aynu maanta ka hadlayno marka noloshaas ku dhisantaho waa inaanu inaan ka yar waxaan soo fadhiistay inaanu xilku waxaan inaan caddeeyo inaanu xilkii xil wareejintii waqtigii xil wareejinta ayaan ku jiraa dooni mayno inaanu hadii ka dhigo maartay waxay aanu hayno la dhimanno oo wixii aanu haynay waa inta badan dee way gudubtay oo waa la hayaa marka imika inaan ka yar yaag fadhiyo waxaan uga jeedaa inaan tubtu inuu hadii ka dhigo maartay inaan soo dhiirigeliyo oo aan halkan aan wada fadhiisano adiga oo ninka aad arkaysa gaboobada inaan ka yari dabadeetana wixii ilaahay noo kala qoray murtiye aan kaga ku dhaamo inuu hadii ka dhigo maartay la wareeg
واي صدرك إنسان وانك هذا ضير علي مركب ورا الساعة ديان كوديو إن قرما ضلت أحمد وحنا شيء سنة كي سجال بقولي صدحية سجاشن كي مركز تمشي بعد ما كنت قياستي دي تونس رضاد ملها سن قياستي نقوليا سنة كاسن كل شيء مقالة برعو هذا قال كاسن كبر بارك كسو كري ما أنت ننتهي كسو لك ما شاء الله قبي سام وأنا قبي يا إلهي دقوق قراتك يقرشوا دقوق وحنا إلهي قفوا دونا وسيا مركا الحمد لله رب العالمين وكفر أحسن ما شاء الله قرما قبي ذي كوجه رسد بالوضع محاسك كوجه لي سيد كوجه تمينات قبي ذو والله واسك أود إلهي مركا ورا قبي ذيو سيدنا من سنة هاي يسيد أي تحيبة حويا أودها إلهي عدد دونا وسيا وخطرات كم إذا خطرتها إلهي بحية markii ugu horeysay aan isku arkay inaan gabi karo waxay ahayd sanadkii 2017 anigoo xaalad waqtiga taagneed marka ku baraarugay wax ka tiriyay markii ugu horeysay gabayba tirsan marka ama maanso ama halaal maxaad abuurtay maansooyinkayga iyo gabayadayda iyo adigu suugaanta intaan ku dhex jiray badweynta suugaanta intaan curiyay waxa gaadhayaan ilaa 364 meelaha ma sha Allah maxay ku saabsan yihiin markaad ka gabaydaa mid dhaqanka mid suugaantan lafteeda mid nolosha mid adigu xaalad kasto taagan wadaniyada jacaylkana waa hagaag marka bal waxa dooga wartaa bal mid ama laba bal horta mid noo soo qabo bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan soo qaato maansa kamida maansooyinkayga waliba maansadan odhan karo waan ugu jecelahay murtidayda waxaan kaga qayb galay bandhigii bugaagta Hargeysa sanadkii 2011 bishii 7 baxnaana la yiraahdaa maansadan waxaan ku bilaabay ogow bisinkiya quraanka aqoontiya baahinteeda inaan bari hore bilaabay anoo baby caruura gaadiye baaleyda maanso barteediya furaha taabtay abwaanada baal ku yaala suugaantooduna bislaatay booskoodii inaan la joogo barina u haraayo meesha baadiye beydka afmeeray wixii haray aan baldheehdo marka maansadaydu saddex qodob bay taabanaysaa mid waa dhalinyarada midna waa qabyaalada midna waa iskaashiga iyadoo ay jiraan meelo kale badan oo iyagana aan wax ka odhanayo qabyaaladu waa bilaayana looma baahna badheerani maan lahayn baqiya fulay baa ku dhuunta kashiisu nimay baqayso ayaa bido ciirsi mooda qabyaaladan sidaan aaminsanahay waxa isticmaalaan niman isagu waxba ahayn oo odhan kara anigu waxaas ninka ragi wuxuu yiraahdaa anigu waxaasanahay waxaasan mustaqbal kuleeyahay waxaasan mujtamacayga soo kordhin kara bulshadayda kaalintaasna ugu jira laakiin ninka aan isagu waxba ahayn ninka yiraahdaa reerkayga sidan ay reerkayga wax may qabtaan dadkayga samaha beero dadkayga xumaha baaji dhulkeeniya nabadda baano afkeeniya baaxadiisa hidiya dhaqankeena buuxa ka baaji inuu halaabo baadiye beydka afmeeray wixii haray aan baldheehdo baadiye beydka afmeeray wixii haray aan baldheehdo balaag arrimaha ku seegay talooyinka baal ka weecday haddaana tab ka buuxsan ogow bari waad baslayne taariikhda abaaday raadi wixii bari hore caraabay ku soo qoro buuga gwaara barbaaray dhaqanka suuban ka daaya badheedhka maanta baadiye beydka afmeeray wixii haray aan baldheehdo barbaaray maagid maaha dagaal iyo buusna maaha bannaan tooctoocsi maaha dadkoo runta loogu baaqo baadiye beydka afmeeray wixii haray aan baldheehdo baftiya saddex qaydimeeye dhacliya boqorkeennii aaway baldhiishiya haantii sooday hadhuubkii baxnaa la waayi bacbaa booskii ka qaaday bir baa lala roorayaayey ba iyo hoog yaalla weeyi ayaan darro baahday taadhe wax kastoo aynu dhaqan u lahayn ama wax kastoo nolosheennu ku salaysnayd maanta wax kaloo ka gedisan baa jooga hadday hadhuubkii ahayd maanta caani wadigaar ku bac baa lagu sida wax kasta bac baa lagu qaaday markaa taas waa ayaan darro maanta bulshadeena dhexdeeda ka taaganoo ummad wixeedii hantideedii tuurtay oo ka tagtay barbaartu inay dadaasho bannaanbax qorshaysan qaado dalkeenna wixii bilaaya danteenna wixii bogsiiya afkiiyo dhaqankeenna baahsan handheer ku bariidinaya inaan wada baadi doonno bulshoy waa aragtideenna baadiye beydka afmeeray wixii hadhay aan baldheehdo iskaashigu waa badhaadhe nolosha lagu baadi goobo barwaaqiya horumarkeena bulshadu dhidig iyo laboodna ku buuxiso baylahdeeda iskaashigu gacantaa bidix iyo tamidigmo ma kala maarmi karayaan marka iskaashigu inuu yahay wax bulshadeena u baahan tahay markaan cadeynayo ku buuxso baylahdeeda adduunka raggaa bannaystay bad iyo berrigaba ku foofay bishiyo meerahaba dhaafay tacliin bay kaashadeene halkay joogaanba beegso bareejo ku hay ayaamo dabeed barbarkooda dhaafba
barbaaray badi xasuusta halkaynu bar joognay waayo adduun bar ku gaari maayo baxnaanee kaydka duugan maansadaasi baxnaanana halkaasay ku koobanto aan kula hadlay dhalinyartayda waa hagaag abwaan hadraabi waad arkaysaa wiilka yar ee dhalinyarada ah ee dhinacaaga fadhiya oo adiguba aad sheegtay waxaad u soo ag fadhiisatay inay tahay inaad dee xilkii ku wareejisaan marka ma u qalmaa in xilkaa lagu wareejiyo bal sidaad u aragtaa sidaad u qiimayn lahayd markaad maasidiisana eegto tani waxay ku qiimaysantay da'diisa ayaa dee maaragtay ayaa u aheen haddii la kaligo iyadaa u aheen markhaati kowdhe daadaa u sheegtay iyo gabaygu tiriyay dee way isceliyaanoo way isleeyihiin baritana taatu ka fog ka durugsan ayuu u socdaa kowdhe anigu aan ku celiyo waxaan usoo ag fadhiistay in ay haddii ilaahay ka dhigo maalinkan isaga u noqoto dhiirigelin u noqoto waxaana nalooga annaga waxaa xaqna loogu leeyahay waxaanu ku kordhin karno ujeeddo ah erey ah ee dhisaya isaga iyo sugaantiisa inaanu ku kordhinno waa jecellahay markaanu hadlayno inuu meesha fadhiyo oo wax ka guntado yani annaga qofkan barbaarintiisa wada ujeexintiisa xilkaasaana saaran daadaa maanta 18 jirka ku gabiya oo tirada wad maqlayso waa gabay u qalma daadiisa oo aftahamale baritana taatu ka durugsan ayuu tagayaa maalmo way daba socdaan maanta halkaas ay joogtaa laakiin baritana taatu ka xeel dheer iyo tuka aragti ballaaran ayaynu ka sugaynaa anaguna dee waaba iska daallo waxaan doonayna iska faraa ka qaadno waxaan u baahnay laakiin intaanaan xilka ka tegin waynaanu ciddiina bedeli lahay waynaanu soo saaroo dhisno kusoo saar karnaa maanta waxaad moodaa dadkeena in af Soomaaligiiba ka sii guurayo dadku intii dibadaha u baxeenna waabay ka sii xaq jirtaayoo maanta dad badan ayaan af Soomaaligii iyo dhaqankii iyo murtidii iyo wixiiba inay dee sii hagaasayaan ayaad moodaa marka bal sidaynu u abuuri karnaa bay kula tahay ku soo noolayn karnaa dadkii inaynu afkeenii hodanka ahaa ay u baran karaanoo suugaan intan ka badan ay ku abuuri karaanoo ay soo saari karaan dee rag la mida adiga iyo raggii kale dee kula qeyrka ahaayee dee taariikhda gale ka tegey dadka wuxuuga tegey si ay jiilka beri ugu soo saaraan sidaynu u abuuri karnaa bay kula tahay abwaan wax la abuurayaa ma jiraano dee shalaytana waxa aan anigu lahaa iyo waxa kii iga weyna lahaaba oo wax ku saabsanaa noloshii markaa jirtay qofku khayaal iyo hurdo iyo mala awaal hadduu waa laba tiriya mala awaalka laakiin waxaan u ka hadlaynaa xaqiiqooyin jira shalayto waxa anaku hadalka iyaga iyo gabayagu ku saabsanaa waayihii markaa jiray ya kuwii naga horreeyeyna sidaasay ahaayeen kuwa naga dambeeyana iyagu waa iyagiyo nasiibkooda iyo xilliga ku soo hagaaga iyo xaaladaha jira ayay ka gabayayaan ereygana wuxuu ka qaadanayaa haddii la ka dhigo dee horta raggii tegay inta badan waxoodii waa la hayaa ragga maanta anigu aan ka mid ahayna waa la hayaa ummadda aftahamadii kama marhan laakiin halkii ay mar gaadhay inay dib u soo noqoto ay mar kale gaadho taasi waa mustaxiil weeye maalinba maalinta ka dambeysa nolosha waxbaa ka sii dhacay way sii digaysaa way sii dumaysaa marka kan halkaa maanta maraya ayaa ugu dambaysa saan filayo haddii la ka dhigo generation ka dambeeyo soo bixi doonaa aniga malahayga ma jiro noloshii baa iska gebagabaaho dee waqtigii baa taagan oo maaragtay laakiin inaku ilaahbaa og dee wixii dhacayo isagaa ku shaqa leh marba uun xaaladaha jira ayaa layna faray inaynu ka jawaabno oo wixii kalaankeeniya kaskeenna ah iyo dadaal aynu samayno aynu kaga jawaabno marka waajibka berito aniga ima saaree ninkan odayga iyo da'diisa ayuu saaran yahay bismillaahi raxmaani raxiim mar kale waan ku faraxsanahay inaan maanta meel la fadhiisto macallinkii suugaanta Soomaalida ahna aniga macallinkayga intii aan badweyntan soo dhex galay taageerada ugu badan aan ka helay iyo dhiirigelintaba waxaan soo qaadanayaa hees aad u kooban oo hooyada ah waan uga sheekeeyay abwaan maxamed oo iga tijaabiyey marka maansadan waa hees yar oo kooban waxaan curiyey sanadkii 2010ka barnaamij adugan Hargeysa kaga soo qayb galay ayaan habeennimadii subaxnimadii habeenkaas waxay ahayd habeen ka duwan habeeno badan oo noloshayda soo maray ma garan karo adigu waxa ilaahay ka waday bay ahayd habeenkaas waxaan aad u xiiseynayo anigoo maanta kale ka imi hooyaday xiise weyn baan hadana waayay habeenka waxaan akhriyay dawtana maansadii abwaan hadraawiye hooyada laba maanso oo hooyada ka tiriyeen habeenkii akhristay adigu subaxii markaan soo kacay hotelka Mansoor baan tagnayo aan quraacdii u tagnayo markii la soo fadhiistay baan
waxaan arkay hooyo adigu waxaan maleynay Suuriyaan tahay ama Hindi dadkaas dibadda inaga yimiya ilmo yar bay ku sidataa markaas saladaha yar carruurta lagu xafido lagu ilaaliyo marka ilmaheeda yar adigu hadduu ugu weynaado 8 bilood 9 bilood meelaha weeyaan qof saa ugu maaha marka ilmaha yar way u riyaaqaysaa way u sheekaynaysaa way ilmaha yar sidii qof fahmaya ayuu uga soo dareen celinaya oo qoslaya oo farxadda u muujinaya markaasaan waxaan suuraystay hooyadu inay tahay qofka kaliya ee intaas soo luuqadood ku hadla haddaan tusaale ku soo qaato aabaha guriga la luuqad gaaray kula hadasha inanta shaqaalaha guriga joogta luuqad gaaray kula hadasha caruurteeda mid kasta iyada aftaqaano luuqad kula hadlaysa isku fahmayaan markaas dareenkii maalinta xiisaha ilmaha yar waxaan anigu ka dhignaa ilmaha yar la kolkoolinaya halka ku jira ayaa sawiranaya anigoo halka ku jira bal kadib aan maansadan heestan yaran kooban tiriyay oo aan markaa hooyo ugu ducaynayo waxaana ila wadaagaya hooyada iyo hooyooyinka kale oo hooyo dhan ba iska leh waxaan idhi hooyoy udgoonay naxariistii eebe ani la igu deeqay aragii naftayday garhaya adduunkay aabaha karoonay haddaan joogo abidkay abaalka ma gudi karo wana xaqiiqo qof hooyada abaalkeeda gudi kara uu yar yahay ama ma jiraan aaminsanahayo hooyo wax loogu abaal gudaa baan la garanay hadii loo abaal gudi lahaan haddaan joogo abidkay abaalka ma gudi karo hooyoy udgoonay ubax iyo xareeday doog iyo ugbaaday markii aan ku eegaan naxariis ilmeeya markaan ku imaadaan kalgacayl la ooya ayaantan ku waayaan irsiqiya dhadhamadiyo noloshaba ilaawa muruga agtaydiya agahayga taalo farxad waan ilduufaa bilo iyo ayaamaad igu haysay uurko aawaday go'doontee uma wixii ku soo maray ayaamihii qaraadhaa allunbaa ogaayo eray laguma koobee hooyoy ammaantaa qalin laguma ururshee axdi waxaan ku marayaa ifka intaad ku sugan tahay inaan kuu adeego ku ilaasho hooyoy ilayskii naftayday furihii adduunkaay ilaahay dhibaatiyo ama kaaga noloshiyo aafaadka kuma bado abidkaaha murugoon adduun waa rafaadka iyo hawlo joogtaa ibtiliya xanuun badan uma hooyo qurxey istariix ku noolow ayaantaa qiyaamaha inta nabiga raacdee janno urisa noqo oo ilaahay ha kula jiro marka gabay baa socdaa la odhanayaa sugaantu way kala duwantii mamaanso geeraar buraanbur gabay marka dadka dhalinyarada ama aan sugaanta aad ugu dhundaloolin inay gabay inuu wada haystaan baa laga yaabaa marka bal adigoo macallimadaada iyo aqoontada uga faa'iideynaya bal maxay ku kala duwan yihiin bal sharaxaadtaas naga sii maxaa geeraara maxaa buraanbura maxaa maansa ah bal qadar faahfaahin aan jecelnahay inaan jaaniskana dadka kaga faa'iidaysano oo aad bal dadka uga faa'iidayso adwan taasoo iska fududahay horta ama waxa la yiraahdaa badda horta marka hore waa badda suugaanta waa bad ugu fara meel ka soo galo waa haddii la taxo imaka la yiraahdo bal hadda inta suugaanta la isku yiraahdo hal la tiriyo waa inta hore gabayga hadii hogaaminayo gabayga waa wuxuu hadii ugu xeeleeriyaa hadii ninka ugu da'weyn ayaa gabayga lahaa waqtiyadii hore waxaa ku xiga badaleedo geeraarka oo ninka dhalinyarada barbaarka nolosha asalkeed baan ka hadlaya ninkii barbaarka ahaa ayaa geeraarka lahaa jiiftaa jirtay iyadoo waata saddexaad baydo jiiftadana isku dhaweeyay iyo geeraarku isku dhaweeyay jiiftadana faraska gaar lahaa marka la fuushan yahay lagu maasamaaso waa gabayga waa geeraarka waa jiiftada waa halaan halka وكهانتا وكهررك وكعواتي كديو كبيتا وكأوبات كلجو سيحية واتا هدي راي كديو لجو جدي كليو حولها مركل واتا جد كاس سأقف كودا ودارين وكاشة إنه سعود كيسية حولها نوضو كودي إلى سدوي كارثة بطل هذا بتسيوغانت يقول وقت بيلات هذا وبدول بوجد يعني ويسكو وضع مذي لعددها يا كردون على سير الله يعني ميسانك هي كلا دوان وكذا هي كيرار كوا كلا ميسان لكن لبضوا هو يسكون وجدنا كهذا يسوون بحكمته لكن وحكوا كلا دوان سيرة يود عددها تصالهم بالمحات شيفتا تصالهم من قصين كتابون شيفتا دو أما قبي أما مصر تقبي جو وحكوا كوا كرني كوينو وكديري هاي كوا كلا قبي جو مثلا حتى ترى هذا هذا إنه قبائل دي شري مكسوق هذا إنه يا
ereyga gabayga leeda waa ka hogaaminaya horta suugaanta waayo wuxuu hogaaminayaa ninka weyne waayo aragga ee 80 70 60 sanadood jiray waa garwadaankii ayaa tirinaya wada soo joogay 80 sanadood oo wixii dhacay ogaa laba 80 ka horeeyayna dhagta qaatay oo maaragtay ilaa 250 sanadood warkeeda haya كودي مركا قبل قدو واحد فكرة بكايس هذا مركا ترينا يو هدول مكده قبل هذول سوق هذا النوات نرويان اللهم صل على محمد هذا دي ما توجيري ذو بربي نور شدان تاي إذا جي مربي كايه نخش حاران ولما يروح معروي اللي هو وبابينا هو باركته kasoo jeeda halka marka gabayga ayaa ugu eraya dheer ugu dheer geerarkana waa ku xigaado waa ka dambeeya uu leeyahay cawsku mid kale uu leeyahay haanta luliteedu mid kale ilmaha marka la aamusiinayo bal siixinaya mid bayad maqasha marka la wado mid bayad ciyaarka marka la joogo xoolo la waraabinayo mid bayad yaani waa bad ilaa 20 ilaa 20 badood oo wada hal abuura oo tabada gabaygaas hogaaminaya way ugu dambeyntii bal maxaad ku dhiirigelinaysaa daayartan dhalinyarada aad u soo jeedinaysaa ama bulshada Soomaaliyeed si ay u dhowraan ama aan u ilaabin suugaanteeni iyo dhaqankeeni maxaad ka lahayd horta guubada lahayd tashayga ugu meebsani su'aasha jawaabta tashayga ugu meebsani waxa weeyaan ninka weyno ninka yar dhis oo ila xilkiiba xilbad ku wareejinaysa adigu berida hadii la ka dhigo tagaysaa isaga dhiso reeb cid hadii la ka dhigo martay meesha ku hadha marka ninka yar wuxuu baahan yahay in loo warramo dhacdooyinkii nolosha mid taariikhdeedii dhaqankeedii dhaqaalaheedii aqoonteedii xeerarkeedii waayaheedii colaadeedii nabadeedii qofka in la dhiso qofka iska ma dhismee qofka weyn baa waxa la faray كوينو كير وحوش يبغى نص بكل سنة هذا ما ركتي هدو حسقو هذا يعي هالكاس وإلا جوريتي سو ما ذلك مركا أنك تنفرني إنك وين وحافرن ما هو بحسين وكتة وح كلو قدر لو هدي لها كذا وكوري عدي كذا بيسي أيا واجب كاساس صار مركا ورجع كوش يقدر وكو برامه ورجع كواحد نقول واحد تريه وبس سوفريستنا وحال سوفريستنا اللي رجالي ذا كاير إن الأكبر يستوى يا ما تعرف كم قعدون هاي وأنت كسوي تاسو نقطة ما ركتي أي فانو نقطة دي رجال نقطة مركا واجب كاسيوان السارية أنت عارف نور هايو إن أنا مالي والبركة حال كبيرين كراي كبير دو يسقي يداديسه وواجب نفرن علي سيد وركيسا إن غرفة دو أبوان كيني وينا محمد إبراهيم ورسمة تراوي محاتي هيكسيرسا محاتي ككورسن كرتابي كلاتي بسم الله الرحمن الرحيم horta ilaahay baa mahad iska leh oo inagu sameeynayno madashan si qurux badan saaka aniga iyo abwaankii iyo adigu Axmed Xuseen Warsamo barnaamijka noo soo agaasimay baa inuu si fiican u wada fadhiisano runtii waxa weeyaan oo macallinkayga noloshan anigu oran kara intii iminka aan ilaa 6 sanadood way gaaraysaa maalin kasta oo aan imaadana talanka guntanayo aan meel liganayo iyo qoran marka maantana runtii aad baan ugu faraxsanahay awrbaawrka ka horeeyay socodkiisa leeyahay Soomaalidu tiraahday waxaan higsan jiray weligayba inaan Maxamed Ibraahim Warsame hadraawi jaanis u helo bedelkiisa noqdo oo aan suugaantiisa dhex galo oo aan tii sanad umada gaarsiiyo oo aan xafido intan ka hayn karana ka hayo si anigu aan tiriyay intii ilaahay iga garansiiyana aan sameeyo marka ma sha Allah farxad bay tahay waan ku faraxsanahay mar kale waxaan leeyahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo inta nolosha ku hadhay maxaad taashay barnaamijkan ku soo gabagabeyno marka suugaantaada waxaan jecelahay runtii inaan ku soo gabagabeyno maansa yaro kooban oo ay ku wada sheekaysanayaan nabadii iyo colaadii oo mid kastaaba ay leedahay anigu waxaasan qabtaa colaaduna ay sheegayso awoodaheeda nabaduna ay sheegayso awoodaheeda marka ma i garanaysaa baa la mid waliba ta kale isu sheegaysaa marka nabadda marka hore hadlayso waxay tiri waxaan ahay ugbaad ubax iyo caleen noor iyo ilwaad saac iyo iftiin noolaha adduun inamiya habliyo oday iyo islaan idilkood rabaan waxaan ahay udgoon udug iyo nawaal waxaan ahay aqoon aadmigu dhammaan way igu farxaan way i aaminaan ijinkan degana way u soo qaxaan waxaan ahay ilqabad ugub qalanjawacan inan lagu najaxo waxaan ahay hilaac roob soo onkoday dadku eegayaan
akhbaartii sugaan waxaana ay ugaas la ilaaliyo la adeeco ummad meel ku dhaqan indhahoodii iyo iridaha u furo wixii ay rabaan waxaana ay ugaas ogolaado khayr oo eryo xumaan waxaana ay udaax almaasiya yaquud mahad eebbe iyo waxaana ay adeeg intifaacsan dhala ugxan baan sidaa ubadkaygu waa cawo iyo ayaan waxaana ay ayaan iid iyo khamiis aan kuu gadbaxa ma ay garanaysaa nabadii waxay tiri ma ay garanaysaa colaadiina waxay isu sheegaysaa iyaduna sidaas leeg awoodaheedii iyo dhibaatooyinkeedii hadimadii iyo aafaday ummadda u geysato waxaana ay madow mugdi iyo aguug irbadaan sitaa walaalaha isjecel islaayaan dhahaa olol baan shidaa aradkaba gubaa umiyuhu dhammaan way iga qaxaan ooyaanin badan ilmo kaashadaan ooshaan degana waa laga irdhaa umo iyo carruur aabbaan dilaa inaan lagu farxiyo odayada taliya haldoor iyo abwaan ugubkiiyo hablaha deeqsigiiyo aftahan meelaan ogahay iilkaan dhigaa haddii aan rabana meydkooda idil aradkaan wadhaa umiyuhu dhammaan way iga qaxaan meydkooda idil aradkaan wadhaa aboodigu cunaa eydu feenataa waxaanahay abaar omos iyo kulayl oon biyo la'aan uuro iyo qiiq waxaanahay ayaan aan lagu najixin waxaanahay ibtilo aafo iyo qaxar waxaanahay inkaar aadmiga ku ladhan oo aan ka hadhin aan kuu gadbaxa may garanaysaa colaadiina sidaasay u sheegaysaa dhibaatooyinkeeda geysato nabadduna waxay sheegaysay faa'iidooyinkeeda marka maasha allah mar kale waan ku faraxsanahay barnaamijkaygii maanta inaan maxamed ibraahim warsame la qaato bahda universal tvna aad baan ugu mahadnaqayaa aad buu mahadsanyahay waxa uu ahaa maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo cali maxamed caliyare oo loo yaqaano dhanaaniye waa abwaankii Soomaali hormoodka u ahaa waxaanu halkan u soo fadhiistay dabcan si uu u dhirigeliyo da'da yar ee maanta hal abuurka u guntatay in ay soo kacaan ama u baxeen cusub ay doonaya in ay nooleeyaan dhaqankeennii suugaanteennii iyo murtideennii iyo wixii aynu caanka ku ahayn Soomaali ahaan barnaamijkan oo ah dhirigelintii maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo soo jeedintii axmed xuseen farsamadii علي داره وعلي حسن سويله iyo علي yare oo dhanaaniye loo yaqaano dhamaantii waxaan u leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh